labiyo tobanka bisha mawlid ama rabiicul awal waa maalin ku weyn guud ahaan dadka muslimiinta ah meel kasta oo idaafaha dunida ka joogaan waxayna ku beegan tahay maalintii uu dhashay nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaata ayaa soo bax ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen culuumudiinka gobolka Hiiraan isla markaana lagu xusayay labiyo tobanka bisha mawlid oo ku beegneed maalintii uu dhashay nabigeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam ayna ka soo qayb galeen culuumudiinka magaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan boqolaal dadweyne ah oo ay horkacayaan culuumudiinka magaalada isla markaana qaadayay qasiidooyin nabi amaan ah si loo weynayo dhalashadii nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ku beegneed labiyo tobanka bisha mawlida waxa ay socod dheer ay ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada ayagoona markii dambe isugu soo aruuray fagaaraha weyn ee iskuulka Xawataake ee magaalada Beledweyne halkaas oo ay culuumudiinka ka soo qayb galay munaasabadan lagu weyneynayo dhalashadii nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxay ka soo jeediyeen muxaadarooyin ka turjumaya ahmiyada maalintan oo kale ay u leedahay guud ahaan dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan dadkana kula dardaarmay in la weyneeyo maalintan oo kale waxaana hadaladoodii ka mid ahaa culimadii ka qayb gashay munaasabada xuska 12 mawlid jacaylka nabiga waxa weeye iyo ku dayashadiisu waa waajib min yawmi mawlidihi maalinta uu dhashay laga soo bilaabo ila al-abad ayadoo waliba aad farxad iyo maxaan reereyn lagu darayo إخواني فهذا الشهر شهر المحبة بشان وبشي جعيلك مؤمنين تي مؤمنات كي وتاي وبشي فرحة هي سرور كالقو فرحة دلشة خير الأنام وبشي لدل صاحب القرآن هي هنوكا وبشي إدعام الطعام على الفقراء والمساكين وبشي سيرة الرسول كي أمان تيسا وبرت البشة اللوغة عريسية قالت يا منافقين هي والسداجيمة هي الراعودة ونحن نستحسن بما استحسن به النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوحى ونجسنينا وحي رسولك إلهي ونجست قولهم فعلا ورضا أسلك موليدك ومحمود وي أسل كيس عمل المولود محمود وي وأنا لقى الثوابين يا نكي سميه سيدا لسوقوري معايا لأنه من إجماع الناس وي رسولك إلهي نبوحي الله يجمع الله وهذه الأمة على ضلالة ابن عباس أياه ورياه رنتاس marka waxa weeye ummadan ilaahay kuma kulmiyo baadi way nas'alu Allah fi hada al-yawm al-mubarak maanta oo maalin aad u barakaysan bixaqi nabiyina Muhammad waxaan ku weydiisanaynaa inuu ilaahay dunuubteena dhaafo oo maxana adduunyadeena wanaajiyo oo aakhiradeenna wanaajiyo amni iyo caafimaad marka insha Allah ta'ala caalam al-islaam meel kasto kamid ah awaasim mudun al-islaamiyya wa laga dhigaa xafladda mawlidka culama u diinkiina dhamaantood way ka qayb qaateen waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dadka muslimiinta bi ajmaa'ihim inay isku waafaqaan mawlidka nabiga in loo xafladeeyo xafladda waaweyn intaasan ku soo koobaya nabigeeni suubana calayhi salaatu wa salaam ayay dhalashadiisii aan weyneynayna maanta waxaan raacaynaa wadadii culimadu ay noo sheegeen waxaana loo baahanyahay nimaan nabiga jeclayn calayhi salaatu wa salaam muxusi karo mana soo dhaweyn karo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay tawfiiqdana waafajiyo wixii sharcan xifdi iyo xirsi ilaahay uu naga geliyo beledkana beledur raxmaan nooga dhigo Makka iyo Madiina loo soo haajirayo meesaalkeeda ilaahay nooga dhigo culimadeeni diinkana soo gaarsiisay oo dhimatayna ilaahay u naxariisto kuwa hadda joogo diinka nooleynayaan xaqiiqan la qabanaynin ilaahay nooga dhigo af kulleebla iyo il kulleebla iyo saanqaad baad isixroola jira ilaahay uu naga qabto dalka iyo dadka iyo diinka iyo dunyadana dayax 15 joogon dhicin ilaahay uu nooga dhigo ilaahay intaasaan weydiisanaynaa nabiyana sallallahu alayhi wasallam wa ina saliisa aan badina nabiyana sallallahu alayhi wasallam maxabadiisa mid qana inagu weynaata dhuuxayna insha Allah ta'ala ninkii nabiga maxamed ma lagu amaanayba aado oo amaanta nabiga dhageysto fi jannatin laanahu ma qasad wala ma qasad dalika al-mawla illa bimahabbati sallallahu alayhi wasallam nabiga muxuu yiri waqad qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam man ahabbani kaana ma'i fil janna wa sallallahu ala sayyidina muhammad geeska kale qaar kamid ah qabanqaabiyaasha xafladan lagu weyneynayo dhalashadii nabigeena Muxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatay qaar kamid ah haweenkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa shucuubtooda ku muujiyay qasiidooyin iyo waliba gabayo ka turjumaya ahmiyada maalintan oo kale u leedahay guud ahaan dadka muslimiinta ah
dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in 12 bisha Mawlida lagu daro maalmaha qaran ee sanad walba la xuso sababta duulo sameeyo baanahayo sakuleef laki oo sareeyo baatahaye sidkii maqruuqo banow nabiyo nabi Muhammad sallallahu sanaan ruuxii ku kalmaray suubanow subaxdu ifka uu soo baxay sahwi iyo xusn iyo xasidkiina si guur dunidana siraadiyo leesamada ka ilaa malaa'iga samaawada soo dhaweyn diyaar u ah safar dheer ka wada yimid hasugaan xabiibkan kaleey salaatu wasalaam ayo magaca qaban qaabiyaasha bisha mawlidka nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaan bisha mawlidka aan qaban qaabiyada bilownay maalintii ay dhalatay ilaa iyo maanta aan taagana 12 maalintii nabiga kaleey salaatu wasalaam oo dhashay inta ka dhaxayso waxaan halkaan anaga ka faa'iideysanay warbaahinta dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaan dhaxdaas waxa dhacday gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Uthman Jawaari inuu yiraahday maalinta mawlidka waxaan ka dhigaynaa maalmaha qaranka Soomaaliyeed maalin kamid aan ka dhigaynaa waan ku faraxnay haddana waxaan ka doonaynaa gudoomiyaha cusub gudoomiye hore warkii uu yiray inuu noo hirgeliyo waa maalin aad iyo aad u wanaagsan Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaaliyeed Beledweyne